maanta farxad weyn bay inoo tahay inaan maanta halka kan ugu soo xidhno cuntubiyo ka tirsan ciidamada Puntland ee daraawiishta oo runtii muddo aan maxay tahay saa u badnayn halkan tababar ku qaadanayay oo aad markhaati ka tihiin indhihiina ku aragteen tababaradii kala duwanaa casharadii kala duwanaa ay qaateen ay ku soo bandhigeen halkan oo aan runtii aan leeyahay aad iyo aad bay inoo farxad gelinaysaa reer Puntland u farxad gelinaysaa cadowga Puntlandna uga nixinaysaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arko oo runtii ay ii raacdo munaasabadii kowda August oo farxad weyn inoo ahayd oo aynu aragnay ciidamada maxay tahay daraawiishta ama ciidamada Puntland ee kala duwan wixii ay soo bandhigeen inaan maanta tanna ka qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay mar haddaan soo arkay munaasabadaha noocaas ah cadowgii Puntland runtii isagoo awalba calool xumo maxay ahayd ku naaloonayay ayaa maanta reer Puntland farxad iyo inay haddii dhulkii maqnaa iyo wixii cadowga gudaha iyo dibaddaba ka jira inay dhexda ka jabiyaan bay maanta aan aaminsanahay waxaan farayaa taliyaha guud kuwa kan aad iyo aad bay tababarkoodii ugu guulaysteen waxaan faraynaa oo kula dardaarmaynaa inay ciidamada Puntland oo daraawiishtu ugu horeyso inay tababaradooda iyo xeryahaad hadda ballan qaaday oo aad hawshooda ku jirtaan in la dedejiyo waa idin faraynaa waxaan faraynaa oo kale inay ciidamadani ciidamo la baray discipline ciidamo la baray tababar ciidamo la baray maxay tahay noocyada kala duwan ee maxay tahay ciidamo leeyihiin oo runtii aan ku aragno discipline iyo asluub iyo tababar inay waxaan kula dardaarmayaa inay sidaa ay ku sii wadaan oo aanay kala yaacin oo sidii meeshii lagu hayay lagu hayo oo tababarkooda hoose kii guud dhameeye laakiin kii guudna inuu u socdo ilaa inta waajibaadkooda maxay tahay ay ka gudanayaan in lagu hayo xeryahoodii oo aanay maxay tahay niman u dhammaaday wixii la fasaxay aanay noqon aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maanta kusoo gabagabeynayaa waqtiga oo kulul meel qorraxan aynu taagannahay waa soo yaraynayaa hadalka waxaan ballan qaadaynaa aan farayaa taliyaha guud ee ciidanka iyo wasiirka maaliyadda iyo in maanta ay tahay maalin farxada oo lagaga farxiyo ciidanka oo ay loogu hilib qalo halkaas oo qunyar ay maxay tahay ka qubaystaan wixii hawlaha ay dhowrka bilood kusoo jireen aad iyo aad baad u mahadsantihiin officially waa inoo xidhan yahay tababarkeennii